waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada Muscab Recap fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar naguna dhiirigeli like mahadsanid maanta waxaan idin sharxi doonaa film lagu magacaabo Baray filimkan wuxuu ku bilaabanayaa qayb kamid ah libaaxyada oo ugaarsanaysa dameer farow inta kadib waxaynu arkaynaa family European ah oo soo dalxiis tagay Afrika familka waxay ka kooban yihiin aabaha lagu magacaabo Tom gabadhiisa lagu magacaabo Jessica cunugiisa oo isna la yiraahdo David iyo xaaskiisa lagu magacaabo Amy waxayna soo degayaan hotel inta kadib waxaynu arkaynaa familka oo saaran baabuur kuwaas oo ku soo dalxiisaya kaynuudha hotelka markii la gaaray habeennimadkii familku waxay isugu yimaadeen miiska cashada Jessica oo ah gabadhii odaygu dhalay waxay eegaysaa xaaska aabaheed taasoo aan cajabin iyada waxayna soo aadaysaa dibadda iyadoo ka murugaysan xusuusanaysa hooyadeed taasoo dhimatay goor hore waxaana ka daba imaanaya aabaheed isagoo dejinaya iyada waxayna oranaysaa waxaan u baahanahay inaan ku noqdo guriga aroorta xigtay waxaynu arkaynaa Tom oo odaygii reerka isagoo u diyaariyay familkiisa safar kaasoo ay ku tagayaan kaynta wuxuuna u sheegayaa Tom inaanu raaci karin isagoo uu leeyahay shaqo inta kadib waxaynu arkaynaa Jessica David iyo Amy oo soo baxay safarkoodii dalxiiska familku waxay ahaayeen kuwa ku raaxaysanaya dalxiiskooda intii ay sii socdeen inta kadib David ayaa ka codsanaya darawalkii gaariga inuu istaajiyo maadaama ay hayso kaadi darawalkii wuxuu istaajinayaa gaariga wuxuuna daaqada ka furayaa David si kadiisa Amy oo ah cunuga aayadii amba eedadii ayaa darawalka ku oranaysa meeshan maaha meel ammaan ah darawalka ayaa ku oranaya waxba dhici maayaan isla markaana wuxuu soo qaadanayaa qori u saarnaa gaariga David wuxuu soo aadayaa kaynta si uu u kaajo darawalkuna wuxuu ahaa mid waardiyeynaya ilmaha yar lama arko balse waxay joogtaa meel u dhow waa gool gaajaysan waxayna gaadaysaa iyaga Amy oo u warwaraysa wiilka eedada u tahay ayaa kaynta daawanaysa waxayna dareemaysaa inay wax qaldan yihiin waxayna si kadiisa indhaheedu u qabanayaan gooshan isku qarinaysa cawska darawalka oo isna arkay gooshan ayaa David ku oranaya ka soo carar meesha oo imo gadaashayda David oo cabsanaya ayaa soo istaagaya darawalka gadaashiisa Amy ayaa u soo baxday dibadda isla markaana ku qaylinaysa soo yaa sikadiisa waxa dhaqaaqeeda bilaabaysa libaaxadan David ayaa isaguna u baxsanaya dhankaas iyo Amy eedada ayaa iyaduna u baxsatay dhinaca gaariga sikadiisa waxa xidhantay daaqada Amy ayaa Jessica ku qaylinaysa si ay u furto daaqada gaariga darawalku wuxuu ahaa mid baqaya isla markaana cararaya wuxuu sidoo kale xabado ku riday gooshan hase yeeshee muusan ahayn mid toogtay iyada David ayaa si dhaqso leh ku galaya gaariga darawalkuna wuxuu ahaa mid argagaxsan oo ka cararaya libaaxadan nasiib xumo gooshan oo doonaysa inay ka faa'iideysato jaaniskaas ayaa kordhinaysa xawaaraheeda waxayna markiiba qabanaysaa isla markaasna dilaysaa darawalka Jessica Amy iyo David waxay ahaayeen kuwa argagaxsan isla markaasna qaylinaya waxaana markaas soo weeraraysa libaaxadan nasiib xumo dhammaan muraayaduhu way dalacan yihiin libaaxadan ayaa iskaga tagaysa meesha waxayna qaadanaysaa meydkii darawalka Amy ayaa la soo baxaysa telefoonkeeda gacanta si ay u wacdo qof laakiin signal kuma ahayn mid jooga Jessica ayaa u soo jeedisay eedadeeda Amy fikrad taasoo ay u sheegayso inay dilaan libaaxyadan Amy ayaa rajo ka qabta inuu u yimaado ninkeedii Tom si uu badbaadiyo iyaga Amy iyo Jessica oo wada hadlaya ayaa waxay dareemayaan culays saaran gaariga dhakadiisa wuxuuna ahaa aarkii kaynta wuxuuna urinayay dhiiga isla markaasna wuxuu kadiisa ugu soo degay muraayada hore ee gaariga isagoo fiirinaya cidda ku dhex jirta gaariga isla markiibana wuxuu ka deganayaa gaariga familku waxay ahaayeen kuwa aad u cabsanaya waqti dheer kadib Jessica ayaa oranaysa waxaynu u baahanahay qoriga darawalka si aynu u dilno libaaxyadan balse uma jeedo Amy oo way haraaday isla markaana waxay dareemaysaa cabsi xoogan dhammaantood waxay ahaayeen kuwa arkaya libaaxyadan aarka oo hor fadhiya gaariga sidoo kale goosha oo cunaysa hilibkii darawalka waxaynu arkaynaa Tom oo ka soo rawaxay shaqadiisa wuxuuna yimid hotelkii ay deganaayeen isaga iyo familkiisu balse cidna kumuusan arag qolkii tanka kale waxaa khatartan ku dhex habeensaday saddexdii qof Amy ayaa David ka codsanaysa inuu seexdo balse David oo cabsanaya ayaa ku oranaya eedadii libaaxu wuxuu joogaa horteena Jessica ayaa ifinaysa laambada gaariga waxayna arkayaan libaaxa oo gaariga hortaagan waxaana ku sii badanaya cabsida
Amy ayaa si kadiisa u damisay laambada gaadhiga. Dhanka kale qof ayaa u sheegay Tom inay familkiisu u xiiseen, wuxuuna ahaa ugaadhsade. Wuxuu sidoo kale Tom ku odhanayaa waxaynu u tegaynaa familkaaga berri. Tom ayaa hadalka ka cadhoonaya, waxaana soo wacaysa Tom xaaska ninkii ugaadhsadaha ahaa. Tom ayaa ka codsanaya inuu caawiyo ninkeedu, waxayna u sheegaysaa inuu ninkeedu caawin karin inta laga gaadhayo maalinta berriya. Dhanka kale waxaa kayntii ka da'ay roob, kaas oo yareeyay shanqadhii libaaxyada. Familku waxay ahaayeen kuwa daalan wayna seexdeen dhammaantood. Amy ayaa damcaysa inay soo cabto biyaha roobka maadaama ay haraadan tahay, balse libaaxu ma ahayn mid ka dheeraaday xaggooda. Subaxdii xigtay Tom ayaa ninkii ugaadhsadaha wacay, wuxuuna ka codsaday inuu raadiyo familkiisii. Dhanka kale David ayaa arkaya furaha gaadhiga oo yaala meel xoogaa u jirta. Amy ayaa ka soo degaysa gaadhiga si ay u soo qaado furaha, waxayna ahayd mid aad u cabsanaysa. Nasiib wanaag waxay soo qaaday furihii, balse libaaxadu waxay ahayd mid rabta inay qabato Amy. Amy ayaa jaaniskii u dambeeyay gashay gaadhiga, waxayna si kadiisa ku soo xidhay daaqadda, waxayna si dhaqsaa ku kicisay gaadhiga. Wadada aad u xun iyo cabsida Amy haysay aawadeed waxay xakameyn kari weyday gaadhiga, wuxuuna gaadhigu ka booday meel god ahayd islamarkaana wuu istaagay. Dhanka kale waxaa doodaya Tom iyo ninkii ugaadhsadaha ahaa. Tom ayaa ninka ka codsanaya inay raadiyaan, ninkuna wuxuu u sheegayaa inuusan kaynta joogi karin intaa ka badan. Ugaadhsadihii iyo Tom waxay soo raacayaan gaadhigii ay wateen, islamarkaana waxay baadigoobayaan familka. Libaaxaduna waxay ahayd mid indhaheeda ku haysa gaadhiga. Waxaynu arkaynaa helicopterka oo uu wato ninkii la hadlayay David ee ugaadhsadaha ahaa oo duulaysa kaynta. Amy iyo Jessica ayaa arkaya diyaaradan, waxayna u soo baxayaan dibadda si ay u caawiso diyaaraddu. Nasiib xumo cidna maysan arag. Jessica iyo Amy oo rajo dhigay ayaa waxay mar kale soo weeraraysaa libaaxadii, waxaana si degdeg ah u tooganaya qof. Waa laba nin oo ugaadhsato ah, waxayna Amy ka dalbanaysaa caawimaad, laakiin ma aha iyagu mid u jeeda oo waxay maqaarka kala baxayaan libaaxadan. Jessica ayaa mar kale weydiinaysa biyo ay cabaan. Mid ka mid ah nimankii ayaa Jessica ka codsanaya inay raacdo eedada oo qudheedu cabsi ka qabta nimankan. Ayaa Jessica ku odhanaysa taxadar, wuxuuna ninkani keenayaa meel ay biyo ka buuxaan. Jessica waa mid aad u haraadan, waxayna si degdeg ah ku cabaysaa biyaha. Si kadiisa waxaa dhacaysa xabadda, waxaana kaynta ka yaacaya duurjoogtii. Jessica iyo ninkii waxay u soo xararayaan dhankaas iyo gaadhiga. Jessica waxay markiiba gelaysaa gaadhiga, halka ninku ahaa mid baadhaya saaxiibkii. Nasiib xumo saaxiibkii waxaa mar hore cuntay libaaxadii, waxayna isu bedelaysaa habeen. Helicoptertuna waxay ahayd mid ku laabanaysa tuuladii. Dhanka kale familkii waxaa gaadhiga si kadiisa ugu soo garaacaya ugaadhsadihii, waxayna ahaayeen kuwo aad u cabsanaya. Waqti yar kadib waxaa imaanaya libaaxii, wuxuuna dilayaa isla markaana qaadanaya ninkii. Aroortii xigtay Jessica waxay odhanaysaa way adag tahay inaynu helno caawimaad tan ka dambaysa. Amy oo iyana shoogsan ayaa Jessica niyadda u dejinaysa, kuna odhanaysa isdeji, waxaynu helaynaa dad ina caawiya. Waxayna ahaayeen kuwo niyad jabsan, aadna u warwaraya. David wuxuu ahaa mid daawanaya waraabayaal cunaya ugaadhsadihii uu xalay dilay libaaxu, waxaana markiiba meesha ka ordaya waraabayaashii oo arkay libaaxii. Libaaxuna wuxuu ahaa mid eegaya gaadhiga. Amy ayaa David u sheegaysa inuu ku dhuunto xagga dambe ee gaadhiga, maadaama uusan gaadhigu iminka ahayn mid ammaan ah oo waxaa jabtay muraayadii hore qayb ka mid ah. Dhanka kale waxaa iyaguna soo dhawaaday ugaadhsadihii Crowfoot iyo Tom. Libaaxuna wuxuu ahaa mid ka tegay meeshii, waxayna maqleen familku guuxa gaadhiga ay saarnaayeen Tom iyo ugaadhsaduhu. Jessica ayaa Amy ku odhanaysa anaa degaya oo u qaylinaysa gaadhiga, balse Amy oo u walwalaysa gabadha ay eedada u tahay ayaa ka diidaysa, waxayna ka soo degaysaa gaadhiga. Dhanka kale ugaadhsadaha iyo Tom waxay ahaayeen kuwo daalay, islamarkaasna waxay ka yimaadeen gaadhigii wadada oo aad u xumayd aawadeed. Si kadiisa waxaa dhawaaq maqlaya ugaadhsadaha, wuxuuna u soo ordayaa dhinaca uu qaylada ka maqlay.
wuxuuna arkayaa Amy taasoo uu ku fiiriyay diiradiisii. Amy ayaa si kadiisa u arkaysa libaaxadda waxayna ku laabanaysaa gaadhiga. Tom iyo Crawford waxay isu soo dabagaleen dhanka iyo faamilkii. Libaaxadduna waxay ahayd mid rabta inay weerarto Tom, si kadiisa ayay ugu soo booday waxaana markiiba toogtay ugaarsadihii. dhanka kale libaaxu wuxuu ahaa mid arkaya iyaga isla markaana raba inuu ugaarsado Tom. wuxuu u soo cararay dhankaas iyo gaadhiga. nasiib xumo ugaarsadihii waxa dilay libaaxii oo aad u cadhaysan, wuxuuna doonayaa inuu isna dilo Tom. Tom ayaa ka dalbanaya Jessica iyo Amy inay ka furaan daaqada gaadhiga halka uusan haysanin Janice oo uu libaaxii soo ordayo. daaqada oo furmi weyday aawadeed Tom waxa ku soo dhacday fikradda inuu galo gaadhiga hoostiisa. libaaxa oo xanaaqsan ayaa damcaya inuu la soo baxo Tom, balse nasiib xumo ma awoodayo. Amy waxa ku soo dhacday fikrad cusub, waxayna daloolinaysaa taangiga shidaalka ee gaadhiga. waxayna Jessica iyo David u sheegaysaa inay u boodaan dhankaas iyo geedka ka horeeya. sidoo kale waxay isna u sheegtay Tom oo ku jira gaadhiga hoostiisa. Amy waxay furtay daaqada dambe ee gaadhiga waxayna u yeedhaysaa libaaxa. si dhaqso ah ayay ugu dhawaaqaysaa dhammaantiin sameeya. libaaxuna wuxuu ahaa mid soo galay gaadhiga. Jessica iyo David iyo Tom waxay ahaayeen kuwo ku ordaya geedkii halka Amy ay weli ku jirto gaadhiga. isla markaasna waxay daartay lighter waxaana durbadiiba qarxay gaadhigii. Tom ayaa eegaya gaadhiga balse uma jeedo Amy. ciyaalkuna waxay ahaayeen kuwo aad u murugsan maadaama uu qarxay gaadhigii ay Amy saarnayd. Amy ayaa si lama filaan ah uga soo baxday gaadhiga dhinaciisa iyadoo uusan gaadhin wax dhaawac ahi. filimkeenuna wuxuu ku dhammaanayaa faamilkii oo mar labaad dib u midoobay. fadlan haddaad xiisayso muuqaalada nagu soo biro taabo subscribe si aan u soo gelino muuqaalo noocan oo kala. sidoo kale like saar muuqaaladan haddii aad ka heshay. intaynu ku kulmayno muuqaalkan ka xiga waxaan idinkaga tegayaa Ramadaan Kariim.